Salaamullaahi calaykum. Kusoo dhawaada cashirkeena saddexaad. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato channelka subscribe dheh, like saar si aad u hesho casharo taxane ah. Haddii aad horey nala joogtayna waad ku mahadsan tahay. Cashirkeena maanta waa unda maneno, unda dhis, maneno ereyo. Maanta waxaan baranaynaa sida loo dhiso ereyo. Sidoo kale hore waxaan iigu sheegay Swahiliga iyo Soomaaliga inay ishabahaan, waayo waxaa jiro ereyo badan oo isku eg. Haddii maanta lagu weydiiyo erey Swahili weligaa aad maqlin xitaa waad qori kartaa. Ilan haddii mar aad taqaanid qoraalka Soomaaliga, Swahiliga uu fudud yahay. weli waxaan dhihi karaa luqadda Swahiliga luqadana Soomaali aad bay uga sahlan tahay dhawaaqis iyo qoraal intaba. Waxaan tusaalooyin ka bixin doonaa a ilaa za hadduu Ilaahay yiraahdo. Insha Allah waxaanu ku hormari doonaa dhawaaqa. Waxaan leenahay vocali. A ni askari, a ni askari, e ni embe, e ni embe, i ni inzi, i ni inzi, o ni ofisi, o ni ofisi, u ni uma, u ni uma, a ni askari, askari waa wax faahfaahin dheeraad uma baahno. Waa Soomaaligeena caadiga. E ni embe waa cambe. I ni inzi, tixsi ama diqsi. Inzi waa tixsi ama diqsi si u taqaanid. O ni ofisi, ofisi waa xafiis. U ni uma waa qaandada farkeetada. Qaandada baastada lagu cuno oo farkeetada la uma waxay kala noqotaa qaniinjona way noqotaa. Tusaale waxaa leedahay Amina ameni uma. Mwalimu Amina way qaniinte. Qaybtan xigto aan gudagali doonaa. Waxaa leenahay ba ni baba, ba ni baba, be ni beba, be ni beba, bi ni bibi, bi ni bibi, bo ni bomoa, bo ni bomoa, bo ni bomoa, bu ni bure, bu ni bure, bu ni bure, ba ni baba, baba waa aabe. Fasiraad uma baahno. Hataa ilmaha yariishka markii hadal barna waxay leeyihiin baba. Waa sidii hore idinku sheegay erey badan jiro. Keliya askari emba kelima erey badan oo Swahili jiro oo Soomaaliga caadi ah. Xitaa fasiraadkaaga u baahnayn aad xitaa kor ka qori kartid. Baba waa aabe. Huyu ni baba yangu. Alada huyu kani ni baba yangu waa aabahayga. Beba waa qaad. Qaadka la cunayo maahan. Qaad waa qaadista shayga la qaada. Qaad waa ficil amri, waa ficil amri Allah waa qaadista shayga la qaada. Bibi waa xaas ama waxaa kaloo dhihi kartaa ayeeyo. Ayeeyona way noqotaa, xaasna way noqotaa. Bibi, xaas ama ayeeyo ay noqotaa. Bomoa leedahay. Moa waxaa israacsan laba shaqal. O iyo a israacsan. Waxaan ugu dhawaaqaynaa oo waa cashirka waa soo qaadanay. Laba shaqal israacsan qaabka ugu dhawaaqi lahayd. Bomoa waa dumi. Bomoa waa dumi. Ayadana waa ficil amri. Waxaa la duminaya sidii guriga camal ama derbiga camal. Yes, bomoa dumi. Bure waa bilaash. Bure waa bilaash. Yani shay bilaasha camal waxaa dhihaysaa bure. Wewe ni bure sana. Yani waxaad tahay bilaash. aad baad bilaash u tahay.
insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo meeshan ayaan kasii wadi doonaa. Fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad casharada qortaan. sidoo kale a ilaa za waxaan ka bixin doonaa tusaalooyin ilaa 100 iyo dhowr ilaa 150 meelahaas. marka isku day si automatically inaad u fahantid dhawaaqis iyo qoraal ahaan intaba erayada noocan haddaad meel ku aragtid. teeda kale waxaan idinku dhiirigelinaynaa ama idinku gowaawinaynaa in Swahiligu aad u sahlan yahay, weliba aad ku baran kartid si fudud haddii dhawaaqistaadu ay tahay mid sahlan, because dhawaaqa wuxuu kaa saacidaynayaa qaabkaad erayga adhow ugu hadli lahayd ama jumlad u geli lahayd ama wada sheekaysi aad u samayn lahayd. waxaa noo balanaa cashirkeena cashirkeeda insha Allah. waana mahadsantiin. bye bye.